Qalbigayga boos weyn ayuu ka degay. Waqti yar ayaan wada soconay. Saameyn intee le'eg ayuu qalbigayga ku yeeshay. Waa qiso xanuun badan oo aan jeclahay inaan u soo gudbiyo saaxiibadayda ku xiran barta YouTube-ka ee Socdaal 24. Waan qari doonaa labada qofood ee qisadooda aan ka hadlayno inta ay socoto dulucda qisadani. Waxaana la soo xiriirtay mid ka mid ah gabdhaha ku xiran barteena YouTube-ka ee Socdaal 24. Qisada waxay inoogu bilowday sida tan. Waxaan ahay gabar xijaaban oo guriga kama soo bixi jirin aniga oo aan xijaab wadan, laakiin waxa i qaaday sheedaan ayay dhahday. Qof walba oo bini'aadam ahna sidaas oo kale ayuu qalad ugu dhacaa. Gabadhu waa xuural cayn, joog iyo jamaag ayuu Allah siiyey. Dulucda markii laga hadlo dhanka waxbarashada, waxa ay ahayd gabar u firfircoon waxbarashada oo horumar fiican iyo himilo qurux badan inay ka gaarto jecleyd waxbarashada. Waxa ay xiriir jacayl ay dhex mari doonaan wiil ay waddada isku barteen. Saameyn noocee ah ayaana ka dhalan doonto allab jacaylku markuu qalbigaada galo oo si fudud ku galo oo haddana ruuxa u qaado weydo. Allo dhib badana. Jacaylow adigu maxaa tahay? Gabadhii ayadoo maalin maalmaha ka mid ah jaamacadda ka soo socoto ayay waxa ay waddada ku aragtay wiilkaasoo aad u qurux badnaay. Wuu dhoola caddeeyey, erey jacayl oo qurux badan ayuu ku hadlay. Dhegta jalaq uma aysan siin oo waxay ahayd gabar xijaaban oo Allah ku xiran. Qofka qalbigiisa Allah markuu ku xiran yahay ma cidloodo. Gabadhii waa ay soo baxday, guriga ayay imaaday, waa ay isla sheekaysatay ayada oo argagaxsan. Shib ayay ka dhahday. Maalinkii labaad ayay mar kale haddana wiilkii waxay ku aragtay waddadaasoo taagan. Mar kale ereyo cajiib ah ayuu wiilkii ku hadlay. Kadib gabadhii dheg jalaq uma siin, waa ay ka soo tagtay. Wiilkii inta aysan gabadhii ka soo tegin ayuu dhahay, abbaayo aad ayaan kuu jeclahay, inaan ku guursado ayaanan jeclaan lahay. Gabadhii shib ayay ka dhahday. Warqad ayuu soo tuuray. Warqaddu waxa ku qoran. Gabadhu waxay is dhahday, ma qaadataa, ma ka tagtaa? Markii dambe waa ay qaadatay. Guriga ayay imaaday. Warqaddii ayay furtay. Kadib waxaa ku qornaay ereyo jacaylo qurux badan, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen, abbaayo anigu akhlaaqdaada markaan arkay waxaan jeclaystay inaan ku guursado. Run ahaantii aad ayaan kaaga helay. Intii ay warqadda akhrinaysay, taleefankeedii ayaa soo dhacay. Waa ay fiirisay, waa ay la hadashay. Durbaba wiilkii ayaa soo wacay. Markaas ayuu ku dhahay, abbaayo waan ku jeclahay, inaan ku guursada ayaan rabaa. Markaas ayay ku dhahday, ma aabbahay ayaan kuu wacaa? Walaalow waan ku baryayaa, ammaan i sii. Markaas ayuu dhahay, ammaan kuma sii karo oo waxaan ahay qof ku jecel. Markaas ayuu gabadhii xoogaa dabacday. Markaas ayay dhahday, okay waan ka wada tashanaynaa, wax walbana fadhi ayaa ugu wada goy doonaa. Gabadhii jaamacadda wiilka agtiisa ayay ku ballamisay. Maalin maalmaha ka mid ah jaamacadda waddadeeda ayay isku arkeen. Markaas wiilkii aad ayuu u soo jiitay. Ereyo qurux badan ayuu kula hadlay. Jawigii gabadha ayuu beddelay. Maalinkoodii koowaad saas ayay ku tageen. Gabadhii waxa ay dhahday, waan farxay, jacayl saa'id ayaan u qaaday. Nolosheedii boos weyn ayuu ka degay. Wiilkii maalmo qura waan waayey. Taleefankii igama soo waco. Aragtidiisina waan waayey. Jacayl xad dhaaf ah ayaan u qaaday. Halkee ka raadiyaa ayay dhahday.
halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii koowaad. Anigu jacaylku waan ku adkeeyey, markii dambena aniga ayaa jeclaaday. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. waxaa ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. intaa ku kulmi doono muuqaal noocan oo kala sidaasi nabadgelyo saaxiibka sharafta badan oo waxaan ka codsanayaa YouTube-keena kunki inuu wax yar ka dhimayahay adiga daawanayo ayaan na gaarsiin karo.